muddooyinkii dambe goobaha waxbarashada gabdhuhu aad bay u badan yihiin kolka loo eego waqtiyadii hore. Waxaa jira iskuulo u khaasa hablaha. Waxbarashada habluhu waa mid lagama maarmaan ah in ay soo baxaan aqoon-yahano gabdha ahna bulshadu ay u baahan tahay. Ardayda ugu sareysa imtixaanaadka dalka, habluhu qaybtooda ayay sanad kasta ka qaataan kaalmaha hore. Haddaba iskuulka Salaama wuxuu ka mid yahay iskuulada gabdhuhu ay goob u khaasa wax ku bartaan, waxaana uu soo saaraa sanad walba arday badan oo habla ah. Mar aanu saaka booqanay iskuulka oo xiisadii maalinlaha ay ka socdeen, waxaa hablaha ka muuqday diyaargarow iyagoo macallimiinta duruusta siinaya si fiican ula socday. Maamulaha Salaama ee qaybta hablaha ayaa nooga waramay waxbarashada gabdhaha iyo dadaalka ay ugu jiraan hayaankooda waxbarasho, sidoo kalena ay soo saaraan arday ka dhisan aqoonta. maamulaha waraysigii aanu la yeelanay sidan ayuu u dhacay. kolay hablaha waxyaabaha suuro gelinaya inay goobaha waxbarashada ay ku bataan runtii waayadan dambe hablaha waxaa loo sameeyey iskuullo u gaara oo habluhu ay keligooda ay ku dhigtaan ama qayb hablaha u gaara oo dugsigan sare ee Salaame habluhu ka mid yahay runtii. waxyaabaha keenaya inay waxweeye habluhu ay ku bataan suuro gelinaya waxaa ka mid ah iyaga oo iskuulkii hablihii u gaar yahay waxweeye si niyad samiya wax ku baranaya sida ay doonayaan macallimiinta wax u weydiin kara waalidka laftiisuna uu kalsooni badan runtii uu ku qabo. marka waxyaabahaasoo isbiirsadayba runtii ayaa keenaya. wallaahi dabcan sida caqliga saliimka sheegayo diintuna ina faraysa runtii waxaa hablaha wanaagsan inay qayb gaara runtii ay noqdaan, iskuulla gaarana habluhu ay yeeshaan. dhinac waxaweye xagga waxbarashada habluhu waxay kalsooni fiican u helayaan inay macallimiintooda weydiin karaan su-aalaha ay u baahan si kalsoonida runtii. waayadan dambana waxyaabaha aanu aada u ogaana waxaa ka mid ah in habluhu markay tacliinta ay si gaara u baranayaan ay tacliin ahaan inamada la mid yihiin ama ay kaba wanaagsan yihiin oo ay ka fiicayn runtii. marka habluhu inay tacliinta gaar u noqdaan baa runtii aada u wanaagsan, gaarna waxbarashadooda u dhigtaan runtii diiniyan iyo dhaqan ahaan labadaba. inaanay inamada iyo habluhu isdhexgelin ayaana runtii aada u fiican. wallaahi iminka imtixaanaadka dugsigan sare ee Salaama 2011 baa runtii la aasaasay. imtixaankii ugu horreeyay waxaanu galnay 2013-2014 ilaa waqtigan sana dugsiyeedkan oo runtii tiro hablo 200 hablood ku dhow ay imtixaanka u fadhiisan doonaan. muddooyinkaa kala dambeeyey habluhu kaalmo aada u wanaagsan ayaa ay ka soo hooyeen. iminka imtixaankii u dambeeyey oo kale sanadkii u dambeeyey iminka 10kii arday ugu sarreeyey iskuullada privateka ah inan baa ku jirtay 10ka hablood arday ugu sarreeyey iskuullada privateka ah. sanadkii ka horreeyey lamid kii ka horreeyey lamid marbay habluhu waxaweye 10ka arday ee u sarreeya hablaha Somaliland marbay 4 hablood dugsiga sare hablaha Salaama uu ka helay. marka dhinaca kale marka laga eego aan laga eegin kaalmaha sare xagga average-ka ama celcelis ahaan waxay keenaan dhibco aada u wanaagsan. waxaanu rajaynaynaa sanadkan idamka leh annagoo ilaahay tala saaranayna ardaydeedana runtii aada ugu kalsoon inay sidii iyo si ka weyn ay habluhu ay kaalmo wanaagsan ay ka geli doonaan insha allah. waxa runtii iminka analysis ama cilmi baarid saxa runtii ma hayo, laakiin sida aan filayo inta badan anagu inay habluhu shaqeeyaan runtii waan aad baan u dhiirigelinaa. iskuulkeedana runtii meelo badan habluhu way ka shaqeeyaan, qaybaha iskuullada kayjiyada oo kale, qaybteena dugsiga sare oo kale. waxyaaba badan baa laga yaabaa inay keeni karaan xagga dhaqanka oo kale, waa suuragal inuu keeno, laakiin in qodobkaa laga gudbo oo habluhu ay waxaweye macallimiin noqdaanoo xafiisyada ay ka shaqeeyaanoo runtii aada iyo aad bay ay muhiim u tahay. waayo habluhu dhinac waa barbaarin, waa waalido, waa hooyo weeye. xagga dugsiyada hoose dhexe iyo dhigidda iyo waxyaabahaas oo dhan way uga fiican yihiin
waayadan dambana waxaa aada loo ogaaday ama markaad eegto suuqyadaba runtii ama meheradaha waaweyn in hablaha loo dhiiba iyaga oo looga kalsooni badan yahay xagga kaashiirnimada iyo waxyaabahaas oo dhan runtii inamada waa iska suuragal habluhu waxba runtii ma xumeeyaan xagga aaminaadana way kaga fiicayin baa la yidhaahdaa runtii inamada marka in hablaha la dhiirigeliyo oo waxa weeye shaqooyinkana runtii aad baan u boorinaynaa iminkana waxaad moodaa inay goobaha runtii ganacsiga iyo meel walba inay habluhu runtii aad iyo aad ugu badayn aad uga dhex muuqdaan Iid Maxamuud Xasan, Kalson TV, magaalada Hargeysa.